لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد marka hore waxaan mahad celinayaa weynii mahad lahaa kalifay maanta inay xafladda qabsanto. marbaad waxaan mahad celinayaa walaalihii qiimaha badnaa ee soo abaabulay xafladda qiimaha badan. mar saddexaad waxaan mahad celinayaa kasoo qaybgalayaashii isugu jiro reer Minneapolis iyo reer Rochester. ajir Allah idinka siiyaan leeyahay. waxay rabtaa ku noqdo aniga ka shaqeeyo Minneapolis waxaan ka shaqeeyaa Mayo Clinic taasoo waa saxaya walaalkii gududu. walaalayaal waxaan rabaa waxay reer soo iraado hadal qiimo dawla hore loo yiri. waxaan rabaa bas inaan idin xasuusiyo haddaynu nahay Soomaali weyn in sanadkan 2012 ama 2012 oo noqday sanad sacaado, sanad Soomaaliyeed, sanad samata bixin, sanad taariikhda baaldaaga geli doono. intayna hadda joogtana ay xusi doonto, inta dhiman oo jiilka soo korayana ay taariikhdu geli doonto. wuxuu la mid yahay sanadkii xorriyadda qaadanay. wuxuu noqday sanad eebbaweyn noo suurtageliyey inuu qabsoomo kuna qabsoomo muqdisho muddo 21 sano ah shir lagu dhisaayey baarlamaan Soomaaliyeed oo quality ah. isla markaas baarlamaankii ilaahay ku saaciday inay doortaan gudoomiye qiimo badan Professor Jawaari. inta xukuumaha kan waxay awood u yeesheen inay kala reebaan ee shaqshaqaan ay dhex maraan 22 musharax Soomaaliyeed ayagoo dhankaas u fiirinayay war sanadka kan yaa Soomaali samata bixi karo, yaa dhibka ka saari karo, yaa balabad geey karo, yaa dadkii naga tagay ee caalamka naga dabagey karo. taasna oo ilaahay fursad u siiyey, nasiibna u siiyey inuu ku guuleysto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. madaxweyne asna halkii la saaray iyo amaanadii lagu aaminay si uu u guto waata magaca la yiraahdo gurgurta ugu baxday sidoo uu goobgoobayay oo guriga soo garaacayay wariyaha kaalintan ku aaminaa xilkan yaa ila qaadi karo, yaa Soomaali dhiiri kara, yaa leele maanta arintan ku aamini karna oo amaanada kula qaybsan karo. ilaahay wax xukumay sida la socotaan madaxweynaha waxa uu lahaa صدر مالمود maalintii 26aad ayuu madaxweyne gurgurtaba geedka soo fadhiisiyay walaalkeen Cabdi Faarax Shirdoon Saacid. sida ku cad marka magaca Saacid marka fi luqada Carabiga waa kalma sacaada. waxaan ka rajaynaynaa inuu noqdo kii ummadda saacido, waxaan ka rajaynaynaa inuu ummadda noqdo kii samata bixiyo, waxaan ummadda ka rajaynaynaa inuu noqdo kii ummadda sinaan ku maamulo. sidaa darteed marka waxaan leenahay برامج ساعد ومضي ما تعدي معناها الحلقة الأولى ما عكست عقوبة أظن عقوبة قاتمو وحد قوبتها قولوا وسيرو وقيمة بدن وعيقنا تياره سيد هذا الكيس بعدد وأنت عقوبة قاعدة صومالنا بالدها بكقلو تاسنا إن شاء الله وقت قست عقوبة قاعدته وقت قاعدة قيميسو قدري قرر مسوا ماليات ما أنت كوي قاعدة هاي إن شاء الله وأنتم حكار جيرنا إنه على كوب قولوا kusoo gabagabeynaya anaga qurbajoog waxaan laga rabaa marka qurbajoog anaga way dhamaatay qabsigii hadda ma fadhi ku dirir aan u soo jeesano sida qarankeennaaas aan macnaha qayb u qaadan lahayn. ilaahay qarash waan siiyey, waqti waan haysanaa, inkastoo qaxootinahay haddana waa la dhaqaynahay. marka qoqobnaantii aan ka saarno sidaan qaranka u dhisi lahayn, gacmaha isqabsanno sidoo walaalka Cabdulla ka sheegay qabiil aan tuurno. walaalayaalow maanta Soomaali ayaa nahay, meel kasta ayaa kala daasanahay, afarta qaaradood ayaan jirnaa, meelgaar waa ka baxnay, qarankaas waa wada leenahay. qof kastaba kaalintiisa loo baahan yahay, taladeena loo baahan yahay, tacliinteena loo baahan yahay, tayadeena loo baahan yahay. gacmahaas wada qabsanno, Soomaaliya aan wada gutano. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.